waxaa jira madaxweyne oo u dhashay dalka Romania magaciisa waxaa la lahay Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu ayaa wuxuu go'aansaday inuu ka hoos baxo hoostagida dhaqaale ee dalka Midowga Soviet. Romania wadan waxay ahayd ugu u taagan laakiin waxay hoostageysay wadanka la yiraahdo Ruushka mise Midowga Soviet dhaqaale ahaan. Marka wuxuu go'aansaday inuu noqdo wadan madax banaan oo dhaqaalihiisna asida barto oo dhaqaalihiisna oo helo dhaqaalaas ku filan. marka wadanka Romania ma haysato kheyraad dabiici ah oo wadankaasi ku filan. marka waxay samaysay madaxweynahaas oo la imaaday fikrad yaab leh. fikradaas ayaa waxay ahayd wadankaas waxa ku dhaqanaa oo deganaa dadka magacooda la yiraahdo Yahuud. marka wuxuu yiri qof allaala qofka Yahuuda oo rabo inuu baxo u laabto dalkaani oo Yahuud ay samaysatay wuxuu dhahay inuu lacag bixiyo. lacagtaas wuxuu dhahay waxay ku xiran tahay qofka da'diisa, shaqadiisa iyo waxbarashadiisa iyo xaaladiisa ijtimaaci inuu yahay qof single mise inuu yahay qof oo horgur soo maray. marka waxay noqotay meesha lacag la bixiyo hal halkii raas dadka marka da'doodana ay u dhaxayso 65 sano ilaa iyo 2 sanana in laga qaado $2,000 dadka da'dooda ay tahayna 65 sanana in laga qaado $2,000 balse lacagtu waxay noqotay dadka taqaatiirta iyo injineerada iyo dadka shaqooyinka oo waxbarashada qatarta haysto shahaadooyinka sare haysto masters iyo PhD iyo injineernimada mise cilmiga sare dadku wax soo bartay macnaha iyo hadaa qof wax soo barto inaa bixisaa lacag gaarayso $25,000. arintaas markay dhacday Israa'iil ayaa ninkan caawisay waxayna siisay dhaqaale badan waxayna deemisay lacag tiro badan deentaasuna deen aan faa'iido la socon macnaha lafaha la soo celi kaliya wax faa'iido kaaro ma laha wixii kale oo ka caawisay dhismaha military. marka arintaas ayaa waxay noqotay mid ninkan Nicolae Ceausescu wadankiisa ku dhisto dhaqaale fiican oo helo. marka dadka oo soo hajiro soo qaxaya waxay gaarayeen 200,000 oo qof waxay bixiyeen cala halkii qof $25,000. inta kale soo hartaan waxay ahayn dad waayeelo waxayna ku hareen Romania mise ka soo bixin.